بعد العقود هذه من وقت عقود كسر شقيه دولة الصومالية مش كنت وحدها. سوناكسن وقت جاوي كده ميدو ما ولا بتودنك. واحد في الأيام أنا كي أنا صوت شير أنت شير على اللابط كل صوت شير كما يرى. أذكر دور عطوان ولا دور لبعض. ما كل لابطي مقدسية جوبي هذه لأن يرمى هذيك شغلين شفتي. ما كل لابط. سومالي لان وحي كدن بي بربركي او بيسغاشي waxa lagu dhawaaqay jamhuuriyadda Soomaaliland dubadhis iyo wada dheer ay soo martay maxaad dubadhiska amba asaaska Soomaaliland kala socotayda asaaska Soomaaliland anigu waxaan rag la bilaabay waxaan joogay oo aan noqday 91kii waxaan joogay qabsashadii Burco Hargeysa Berbera waxaan joogay aan gooni isu taagi inkastoo maalmo igu horeeyay waxaan joogay bilowgii dubadhiska axsaabta wax badan iguma seegin سوناكسن Soomaaliland waxay soo martay duruufo kala duwan waxay ka soo gudubtay hab qabaa'il oo reer la isku qabsaday waxay jirtay doorashooyin ay soo doorteen waxay soo martay hab doorasho dhowr jeer kala dambeeyay waxaad adigu ugu dhaado hadda sida ka muuqata xubin ka ahayd ama kaarkaaga hadda ay ka arkay go'aan dawladeyaashooyin ururkii hadda kala burburay ee udub maxaad marka hore ku dooratay ka mid noqoshada xisbiga udub ee hadda baan siyaasadda Soomaaliland lugta kula jirin ما يجرين سبب عط أو لا يراهدو إن تحسبيه ما يكره وناكسنين أو إن وين أسبابك إن وين مركز الرئيسي يعني أي صورة كشيء إن حسبيه كان نقد ديمقراطية أو سيستم كوسبا مركان نك يراهدا بلو جيب حسبيه كوناكسنة حفيرة يعني أنا بوليتيك راهين بوليتيك دو يعني حسبيه تسكون متبعها يعني حسبيه مو يجرين من مبدأ صح لها لكن تتكون بقى كلا دورين سبب وينو عين كاسو عن وقال هذا كل مية موعد وقال هذا وعن أدوب كلمة يشرين نصيبكم بايوه يرجع أصحابنا يوم بايوه هجاجي محاكم هذا قضبة أساس كوقت قالوا أساسي الروين هي عم بحسب قرنكي أدوب وحكم هذا من ذلك يعني نعم كحساب طبعا لقوا دقة حسبي ذكرنا الله مدون بيهاين إن فيلمتي يصير لهم مدادين لهاي يوسكرا يهايد لكن فيلم ما يو إن أي حسبي دوس أو كل دوريين أو كجارها أما ويجي كجارها أما كل وقت كجارها. حسب جودة بحلتي وها حسب جودة حكم كدراء سوق بتي سمان إلا مرة لقى صوب بلا بوقتك مرحبا قال الله نحرسته. وحنا مستنى قضية هذا الناس اللي حسب قرن كجوينا السيد اللي بتيار بربرا ما حد نوقف ما كرتا وحيابي كان بربر كجودة يهال كاي صرت كقولنتي. وحن في الأيام السيسوغان اللي ما وقعن كرو وحوين عن وعلى لحد وقعي وحويان مرحبا حسبية دي بلوفري أو رد دي بلوفري وحفينا يا هجان كسرية ما هجان كسرية حسبيه إنه أركي أرين تعصينا عن حسبيه كان استمتع لهاي وحفينا يا إنه دومي حسبيه وقت جاء محمد داير من كلا جاء داير يا لكاين إنه حام نتوقع دال حق سياسة ده ودال حق سياسة ده إنه حكم مسكح دي إنه تشري وأنه سيدا وجود دارين إنه مر لبعض إن صنع رأي حسبية إن سبب طيب واحد يوضحهم نقطة وأيو إن واحد يرمي وده يسمر كسي إن الله يجوه فرست أروح الطبي أي واحد نعيف في الصين إن حسبية دي هوري وأيو كجود بها قبلية وأيو مركب دبلوم نقطة قبلية أروح الدبلوم فري dad badan oo siyaasiyiin ayaa ku laabtay qabaa'ilkii ama gobolladii markii hore ka soo jeedeen iyagoo luuyaha xisbiyoodkood waxaan xasuustaa tiro raxan wasiir ah ayaa ka baxday xisbiga udub saacadii u dambeeyay iyo codbixinta arrimahaas oo dhan waxay niyad jab ku ridayaan maamulka sare xisbiga sabab sugan oo la sheego waxaa jirta kaliya in la isku dayo in xisbiga la iibiyo taas ayaa dowladda madaxweynaha ama xogeeyay guud ama gudoomiyihii hore uu diiday dabeetana waxay noqotay mar haddii aan xisbiga la iibinaynin in uu siyaasiyiintii ay xoogaa khilaaf dhex maro oo qaarkood ay doonayeen xisbiga la iibiyo halka intaan soo noqonin xisbiga intaan la iibin dad badan waxay ku eedeeyeen in burburka xisbiga uu kaalin weyn ka qaatay gudoomiyihii hore ama madaxweynaha hore Soomaaliland mudane daahir yaal kayn adigu fikirka noocaas ma qabtaa maya toos lama oran karo
arrin jirta oo waa la odhan karaa gudoomiyihii hore ee xisbigu xoogaa daal xagga maskaxda ama xagga siyaasadda buu qabay waa la odhan karaa oo waxaa jiray xadhig jiid fara badan oo xilligii dheeraha 8 sanadood ahaa waddanka hogaaminayay waxaasoo dhammaan wuxuun bay la xiriireen waxaan filaya hab qabanaya iyo hab gobolaysiya. maxaa loo iibinaya xisbiga haddii ay jireen siyaasiyiin rugo cadaayo xisbiga muddo badan kusoo jirtay oo iyaguba u baahnaa inay xilka qabtaan amaba la arkayay inay awood u lahaayeen inay bedelaan siyaasiyiinta daalan? waxaan filayaa arrin sabab weyn oo la odhan karo sidaasaa loo iibinayay ma ay jirto. wuxuun baa loo arkay uun inaanay siyaasiyiintii hore soomaalidu badanaa dadku siyaasadda joogto kama dhigtaan waxay ka dhigtaan one time use oo hal mar baa la isticmaalaa mara waxa rag kale ayuunbaa maxay ahayd kelmadii uu ka dhintay ninkii la odhan jiray maxamed xaaji ibraahim magaale ahayd xilku waa meerto qaab xilku waa meerto uun bay iska ahayd dabadna gudoomiyaha xisbiga iyo saraakiil iyo kaadiriin baa kasoo horjeestay arrintaas waxay dhaawacday marka wada jirkii xisbiga. golaha xubnaha dhexe ugu muhiimsan ka mid ururkooda khilaafku markuu soo kala dhexgalay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka soo awood ahaan idinku kumaydaan fashilmin inaad labada mas-uul xal kala saartaan oo xisbiga badbaadisan isuusan u barbarin? run ahaantii haddii la yidhaahdo xubnaha ugu muhiimsan ee golaha dhexe ayaad ahayd arrintaas sidaas uma sii bisla waa jireen anigu xisbiga taageeraan u ahaa laakiin waxaa jiray rag oo anigu iskay baan u shaqaysan jiray oo nin iskii muruqmaal waabaan ahaa laakiin waxaa jira rag xisbiga hawshiisa hayay oo ama guddiga fulinta ku jiro iga sii dhadhowaa waxaasoo dhan waxaa dhaawacay isku dayoodii habka qabaliga unbaan ugu filaya gobolaysiga. ma u malaynaysa maanta saaxadda waa ka maqan yahay xisbigii waad saad la socoto doorashooyinkan golaha deegaanka u tartami maayo ma u malaynaysa in magaca xisbiga dub loo maqli doono saaxaddii siyaasadda dub loogu arki doono? fili maayo. maxaad filaysaa sababta ugu weyn ee la odhan karo 1 iyo 2 ayuu xisbiga u dhintay? wuxuu u dhintay hab gobolaysi oo siyaasiyiin badan ayaa saacadii u dambeeyey xisbiyada kala qaaday markii dambena waxaa yaraatay rajadii mar haddii ururadii dib loo furayo waxaa yaraatay rajadii iyo hamigii laga qabay inkastuu yahay xisbigii waddanka horumarka weyn gaadhsiiyey xisbigii waxaa maanta laysku oo dhan abuuray haddana rajadii siyaasiyiinta ayaa yaraatay siyaasiyiinta ayaa waxay ka doorbideen in ay haddana la quus qaadaan oo la qayb qaataan kuwa cusub. siyaasiyiin ka mid ahaa udub ayaa haddana waxay doonayeen inay door labaad cayaaraan oo ragga cusub hadda saaxad u ahaa oo dabeetana maxay ahayd haddana doonayeen inay la halmaanaan siyaasiyiinta dhalinyarada ee xisbiyada kale hadda ururada furatay. si wanaagsan inkastoo ay jiraan inkastoo sidaad uga baqartay aad rajo ka qaban xisbiga dib u soo noqdo haddana waxaa jira weli siyaasiyiin aad u tira yar oo iyagu diidan in xisbiga uu burburay aqbalaan inta badanna ku dooda in xisbigu jiro balse uu qaadacay inuu ka qayb galo doorashada golaha deegaanka markii tabashooyin iyo eedo ay tirsanayeen ay uga garaabi waayeen guddida aanada komishinka doorashooyinka Somaliland. rayga noocaas ma jira baadada in waxaan filayaa inaan rajacaynkaas oo weyn laga gaari karin waayo waxaa soo baxaya waddanku dastuur ahaan 3 xisbi baa loo ogol yahay marka dee wada hadal bahaad qura ka hadhay oo haddii 28 kaba la gaaro oo komishinka doorashada ku dhawaaqo inuu sharadkaasi dhacay oo 3 xisbi hebel soo baxeen way adkaanaysaa si maxkamad iyo xeerka doorashooyinka arrin adag bay noqonaysaa haddayba wax isbedelaan waa kunkiisana arrin dhacda. si wanaagsan hadda waxaa tartamaya 5 xisbi oo cusub iyo 2 haro jira 7 xisbi waxaa lagu tartamaya doorashooyinka golaha deegaanka adiga say kula muuqdaan habka tartankan iyo guud ahaanba doorashada golaha deegaanka hadda sidoo socota? habka tartanku kii hore wax badan kama duwanaa waa kii aan anagu u samaynay waa kii aan ka hawlgalnay waa kii xisbigooda uu ka dhintay waa la mid kan oo kii hore iyo kan waa isku mid qodob qura un bay ku kala duwan yihiin waagaas waxaa la dooranayay siyaasiyiinta dowladaha hoose waxay ahaayeen rag dowladaha badankoodu rag dowladaha hoose hore uga hawlgeli jiray waxay ahaayeen dad professional u badnaayeen guulla waa laga gaaro adiga arkay maanta magaalooyinkeena waaweyn Hargeysa Burco Berbera meel walba maxay ahayd council shaqeeyay aan dayga iska jirta laakiin council shaqeeyay laga gaaray xoogaa waxay kaga yara duwan tahay qaabka ma kala duwan ee murashaxiinta kala duwan iminka sida aan ka warqabo waxa isa soo sharaxay dhalinyaradii iskuulada ka baxday dhalinyaradaasuna waa aragnimo shaqo ma laha waxaan filayaa malaha dhalinyarada waxaa habboonayd iyada oo marka hore tababar xagga aragnimo shaqada
la siiyo waa arrin jirta in dhalinyaradu ay tabo iyo xeelad cusub oo ka dhaqso badan la iman doonaan kuwii hore laakiin waxaan iyadana lagu kalsoonaan kari doonin sida isugu samri karayaan maadaama aanay kala da'weyneyn si wanaagsan waa kuwa la kala dambeynaya oo xaafad yaqaana oo nin waliba ninka kale qaarkood 30 sano soo wada shaqeynayeen bay ahayd nin waliba ninka kale wuxuu yaqaan uga dambeynaya kuwani waa arrin adag sida ay u kala dambeyn doonaan sida ay maxay ahayto hawsha markiiba u qaybsan doonaan laakiin balaan eegno dadka qaar waxay leeyihiin malaa waxay ku quraxnayd in dadka yara daaroon daara 45 la doorto laakiin haddana kulli dee dhalinyaradu way ka dhaqso badan yihiin dadka waaweyn taba iyo xirfado cusubna way si wanaagsan Cumar waxaa jira Cumar oraha kaloo yiraahdo maxay yahay ururadan cusub ama habkan loo tartamaya wuxuu dib u soo nooliyay habkii reernimada ama qabaylkii waa hore laga soo gudbay isagoo wiiqaya habka dimuqraadiyadda Soomaaliland ku socoto ma jirto badeeda aaraha noocaas in ururadan hadda ay reer labada kula jiraan arrinta ugu yaraan waxbaa ka jira waana sababta wiiqda xisbi weynihii udub oo siyaasiyiintii nin waliba reerkiisa dib ugu noqdo la soo kooraskariyo wixii dib baa kaartooyinka la isku qasay dib baa loo maxay ahayd ayaa kaarka la isku qasay marka arrinta waxbaa ka jira xisbiyada tartamaya waxaa ka mid ah xisbiga xukuumiga kulmiye hadda 2 sano ayuu wadanka xukumaya ma qabtaa guud ahaan markaad ku soo duubtay in xukuumadan kulmiye ay qabatay wax maanta mar labaad ku mudan karto taageerada shacabka labadii sano ee wadanka haysay laba su'aalood bay kala yihiin mid waxa weeyaan waa inay wax qabatay wax qabadka horta dee waa jirtaa lama dhihi karo raggu wax ma taraya wax yar taraa jira waa jirtaa qodobada haddaba anigu aan hayo weliba aad ugu mucaarida oo aan uga soo horjeeda ilaa iyo bilowgiiba waxaan hadda u hayaa oo aan dhibaaco qoray tusaale ahaan dhaqaaluhu siday doontaba ha noqotee wuu kordhay oo waxaan filaya miisaaniyaddu inay laba laabantay haddaanay saddex laabin shaqaalaha waa taadaweyy oo mushaharkii baa loo kordhiyey haddii eeba xukmahayo waxaa kaloo la sameeyey oo intii mashaariicdii udub ka dambeysay shaqaalaha mushaharkii waa loo kordhiyey miisaaniyadda waa la laban laabay dhaqaaluhu isagoo dee si rid waa la isaga koro xoolihii la fasaxay xooluhu de marka hore ma dhoofi jirin cashuurta xoolo baynu ka helnaa dhismayaal badan baa jira inay ka mid yihiin garoonada wadanka la wada dhisayo dhismayaashaas oo mashaariicdii uu qoray gudoomiyihii hore xisbiga udub daahir jaale kaahin sida loo fuliyey waa siyaasad kale oo dee kulleyba wuxuu yidhi gaalada waxay yidhaahdaan dheridee karintiisa dhadhanka ayuunbaa ka xaasila anigu qodobka ugu weyne aan maanta halka kan kaaga iftiiminaya waxa weeyaan sida wax helistu qiimo male sida loo maamulaya muhiima waayo waxaa la yidhahdaa Soomaalidu caana qubto haddii aynu $10 milyan helo garoomada lagu dayactirayo oo ina siiyey boqorkii ina siisay dalka Kuwait ina siiyey shuruucaana uu qoray markii loo odhan jiray daahir yaala kaahin xilligiisii asee nasiibka oo xisbiga kulmiye la kulmay malaha waxaan anigu filayaa inay ka qurux badnayd in marka hore garoonka Hargeysa ee caasimadda la dhammaystiro ilaa mijaha dhoobada maalin baa la bixiyaa dabeedna ka kale lagu xigsiiyo maanta waxaan cabsi weyn ka qabaa oo tan ugu weynaan doonta taariikhda Somaliland haddii garoonka Hargeysa la furo laakiin ay diyaaradaha jabku soo fadhiisan waayaan sabab dhaqaale darteed taasaa ku filan faashil xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha in yaraan kala qaadnayn Cumar halkaas waxaa tiri hanaankan wuxuu ahaa amba dhismayaashan mid ay bilowday xukuumadii daahir yaala kaahin xukuumadan ay ku dabardaartay inta badan kama maqal xukuumadda maanta jirtay inuu ahaa mashaariic hore u soo socotay mar walba waxa madaxweynuhu dhagax dhigaa mashaariic cusub haddii aad tusaalayaal eegto boodada berbera Hargeysa Burco inta madaxweynuhu isagu ba gacan dhagax dhigay inta badan tusoo inuu iyagu bilaabay maxaad eedaah in waxa loo soo bilaabay inay xukuumaddu ku dabardarsanaysa ay jirto miyaanay jirin in boqortooyada maxay ahayd dalka Kuwait xiriir hore dhex maray diyaarad khaas ah oo soo direen madaxweynihii hore Riyaale Kaahin magaalada berbera laga qaaday la geeyey maxay ahayd carra carbeed la soo diray rag iftiraac iyo baadhid sameeyey mashaariicda la qoray mashaariic marna waa la fuliyaa marna waa la qoraa marka assessment-ka hore loo qaaday ciidan maanta weydiinayna ma jirto ayuu dee taasu dee habeenkii iyo dee caasho kuma heli karo
ما أنت العقل إسكا كاني ولا مدين معي هاي توين واحد كسمية ولا بعدي سيد الله ما ملاي وارين إنه بدي هدي إنك على جالس وارك الدونه ده وحيانا أنا هذا ولا إنك هذا ولا يابني وحكم كذا $1 مليون ويكويرتي برنامج كمشروع معي هاي توي أحمد أركيسة لو رجعنا شركة هذا ديسيس أنا شركة اسمها شغل كله ما هي عندك حمده يذهب كأي بعضها إن واحد يراتي شغل هذا اسمه كله راح بتشتو دولتين دوتا كمان يدقوا يدين دقنا شغلنا سنين واسعارن قانا كريو فرسنا كريو هي ما هاين هدي بيوم يوم ما هاين وارن عن مدوين عبارة تاعي أو أنا حين عن قرصوري وبان وهذا واحد يقول لي وقتها شركة هذا قالوا كديس إذا شركة تخصص معها شركة تخصصها معها قالوا أنا شغلكم أنا اسمنا شغلكم أنا بروفيشنال معها أي سؤال أنت أنا كنت تقولين لكن شركة تكون بيتش كده شركة تكون بيتش كده ما يلا بقى كم قرنا يعني شركة تسوية واحد اسمها فليسي حق قرنا إنه يدك حنت إيه معين تكبر مشتريته نسوي دين على اسمه يشبه لما كنت تقولين وحقابتي يعني waxaa ka mid ahaa khudbadihii xilka lagu koro wareegayay maalintii labada madaxweyne la kala dooro la kala wareegayeen xilka madaxweynaha hore Soomaaliland Riyaal Kaani iyo Axmed Maxamed Siinayo waxa uu yiri madaxweyne Riyaal waxaan maanta Soomaaliland ka tagayaa dad iyo dad wada jooga inta badan dadku maanta waxay soo diideen hadalka Riyaal inay waxba ka joogin oo haddii aad eegto bariga iyo galbeedka Soomaaliland inta badan qalalaasay iyo xabashooyin ka soo yeedhaan habka noocaas in kala kaxaynta beelaha amba intay xukuumadana qabsatay in fawdooyin iyo rabshado reer ku salaysan wadanka ka bilaabmeen adoo eedaha noocaas ma la qabtaa eedaha qaarkood waa kuwa waqtiga la socda oo toos looma oran karo cabashooyinka iminka ka imanaya gobolada qaar markaa waa jireen lama dhihi karo iminka cabashadu dad halkii laga filayay iyo hinjintii laga filayay bayna gaadhin laakiin toos looma oran karo looma bareeri karo cabashooyinka gobolada iyo beeruhu ma ayna jirin lama oran karayo waa jirtaa canaana yaryari laakiin weli xaaladdu waxay taagan tahay meel la toosin karo wax ma ka qaban kartaa xukuumadda haddii maanta sidii loogu soo jeedo aad bay ugu sahlan tahay waa xukuumaddan way ka dhaqaaqantay tii hore tan dhaqaalay leedahay awood bay leedahay way ka aqoon badan tahay tii hore waxaa tii hore ma ay umay badnayn waxay ahayd rag hab odayaalnimo lagu soo xulay oo hab isu samira lagu soo xulay dowladdan iminka niman dhalinyaro ah oo qurba jooga oo dibadda maxay ahayd ka soo safray baa u madaxa way ka xoog badan karaan maxay ahayd kuwii hore madaxweynahani maadaama uu ka soo jeedo beel muhiim u ah gobol muhiim u ah maxay ahayd jiritaanka Somaliland waayo magaalada Burco ee uu ka soo jeedo iminka madaxweynuhu waa magaalada asaas u ah isbedelada Somaliland وكا أود بدن كرا ونا دقيقة بنا كوسية كرا ما هو كده جرا خلاص كي حتى هرب لعي يعني بوحة كده قبل هذا قلبات في بريق Somaliland إن الحكومة ده وحبك ولهن وحل كود اللي دوتي أم بس البروسيما لا يترصد عن تبدن يكون سميان بيلها ده Somaliland مية وحاجة موضوع إن سد البروسيمين حكومة Somaliland زي ما تقول لسنتها إن هبقى بيشلو باشا قبل هذا بريقة أما هذه بحكم يعني القطع قبل كلا يراهو صار لي السنة بري واحد مودا ما من قيب سيجا جود إن حوجا عن لتحجلين سبب تانا إلى أي مكان لما كرن واي واحد عيد أو هذا لوجيكال وفهم كريسة إن سومالي ولي كمتين سومالي لا ولي كمتين ما من قيب سيجا سمير واحد عن لهيد أو أنا جاي لما أقول عن لهيد حدي for example مدحوينه هو كسو تشيدو برعو المدحوين كلهم كله كسو تشيدو بورهني رئيس البرلمان كله كسو تشيدو بربرة إن وكسو تشيدو قدوميها جورتي دو كله لاسعانود أما بدن يحطون ألون رحمة عن لحد حدي تعلم وعيو كرسي كوبات ووزير جمهورية كرسي كوبات ووزير جمهورية أيام كبلا بلها عبارة كتير تحكم مع القيبسي قبل الله الصول يسرع بري أرنوي حتى قبل كلا يلعبوا أوضل سداو مبول ما يدو وبالي هوري سؤالي لان قار عمل يوم بكمديهن لكن أيوه
wax iminka tayada tira ka badan kuma haysanin tirada iminka ay haystaan kuraasta sarsare walaal wasiirada miiska tii hore in riyaalaba tira ka badan kuma haysanin marka ayaga cabashadoodu waa cabasho maamul ma aha cabasho maamul qaybsi iyo dee maamulka la hagaajiyo iyo wax tabasho weeye kale oo dee horumarkii dowladda iyo xagga cadaaladda guud laakiin aniga waxaa ila qurxan in beesha sanaag bari iyo beesha sool maamulka kuraas muhiim laga siiyo si wanaagsan mar haddaynu taana kasoo gudno aynu kusoo noqono doorashadii kulaha deegaanka ururadan cusub ee tartamaya amaba ha ururadiisii jiray sida ucud oo kale waxay xukuumaddan ku eedeynayaan inay hantidii dowladda ku ololeynayso waxay ku eedeynayaan inay xisbiye gaara wadato iyo soo saarayso xisbiyena reebayso eedaha noocaas ee laysku weydaarsan masaxayada ololaha doorashada ma wax iska caadiyo waqtiga doorashooyinka soo noqnoqdaa mise wax hadda loon karo waxbaa ka jira arrintaas waa wax iska caadiya oo dowlad kasta oo tan iminka aynu joogno ee dimuqraasiga ah tan haddana aynu joogno dimuqraasiga ee 1050 sano loo jirtay ayaa maalin walba waxa la isku eedeeyaa maxay ahayto wasiir baa dayuurad raacay oo maxay ahayto meel ku tegay arrintaas waa kasoo horjeed in laga soo horjeedo mar walba la xasuusiyo in dowladdu ay haddii si kale loo yidhaahdo anigu maba qababa dowladdu in ololeyso xaq bay u leedahay oo xisbigeeda u ololeyso eegata marka si loo eego de wasiirku hadduu wasiirku dowladda nimka jirta waa wadaag sida caadiga dowladda hadda jirta waa wadaag ma ayaha badankoodu saraakiishan kama soo jeedaan kulmiye marka anigu waa nin kastoo guddiga doorashada uu diiday iyo guddiyada doorashooyinku waxaan filayaa in aanay arrintaasi sidaa u sii waayo mar walba dee doorashadu waa xor iyo xalaal oo qofku codkiisa isaga iskale si wanaagsan aanu soo noqono dhinacan ururada cusub ee tartamaya aanu soo qaadana ururka wadani waxa ururka lagu eedeeyo hogaamiyihiisa inuu laba xil isku haysto wuxuu ah gudoomiyaha golaha wakiilada iyo xilka gudoomiyaha ururka inta badanna mucaaradku way ku qabsadaan amba ururada ay ku tartamayaan doorashadan arrimaha noocaas oo kale ah iyaga maxay kula muuqdaan arrintaas waa arrin jirta oo wax badan laga hadlay haddaba se mar walba waxaa la eegayaa sharcigeennu wuxuu ka qabaa arrintaa iyada kulli de waxaan filayaa magaalada hargeysa rag arrintaa iga dhuun daloolo iga aqoon badan baa jooga ilaa hadda wax maxkamad loo qorayna ma jirto guddiga doorashada sidaan tuunsanahay waa loo qoray arrintaa marka waxaan aaminsanahay arrintaas waqti yar baa ka hadhay gudoomiyaha xisbiga ururka wadani waxaa dhici karta hadday dhacdo oo uu soo gudbo dee uu xisbigu noqonaya dabeedna kaadharka oo dhan waa la isku qasayaa markaas waxaan filayaa inuu si automaatiga hal kursi u banayn doono haddaynu eegno hadda saadaasha siday u socoto toddobada xisbi dadka qaar waxay qabaan in ugu yaraan laba ururo cusub ay kusoo biri doonaan asxaabtan haru jirta halka qaarna ay qabaan in hal xisbo keliya uu kusoo birayo ururadii haru jiray adiga saadaashaadu siday u badan tahay saadaashadana waxay u badan tahay waxaan filayaa haddii wax waliba siday hadda u socdaan u dhacaan waxaan filayaa in xisbiga ururka la yidhaahdo iminka wadani uu kan ugu shacbiya badan yahay waxaan kaloo filayaa inuu kulmiye iman doono tirada labaad waayo sidii waagi horeen waan ka warqabay waxaa lagu kala helayaa tirada badan iyo codka guud ee 6 gobol oo la isu geeyey waxaa su-aal quri ka taagan tahay ururka saddexaad ee kusoo biiraya xisbigu dallacaya keebuu noqonaya anigu waxaan filayaa kaasi inuu noqonayo in xisbiga ummadda oo xisbigu dallacayo ururka ummaddu halkaan ay soo baxayaan wadani kulmiye iyo ummaddu waa sida ku qoran hadda kalandarka kale ku yaala odab iyo wadani iyo kulmiye maxaad shaxda noocaas adigu aad u qiimaysay kula muuqato inuu soo baxay laba waa iska caddahay oo wadani inuu shacbiyad xoog leeyahay iyadu dee waynu arkaynaa dee miidiyaha inoo sheego waad arkaysaa maalin kasta saraakiishii ugu badnayd ee maxay ahayd dowladda dhexe maxay ahayd middle classka ayadoo dhan isaga isugu tageen kulmiyana waa xisbul xaakimkii oo wuxuu adeegsanayaa maxay ahayd taba iyo xeelado siyaasadeed dad badan oo taageersanina waa jiraan oo dee isagoo xisbiyo ile kuwa hor doortay waa joogaan waxaan filayaa inuu soo bixi doono xisbiga saddexaad baa faallo u baahan oo dadku had iyo jeer dad badan oo sheekaysan isku qabteen oo yidhaahdeen maxaad ku caddaynaysaa waxaan ku caddaynayaa for example haddii
uu tiro ka helo ceerigaabo, tirana ka helo boorame, tirana ka helo maxay ahayd laascaan, wuu yaraanayaa urur saddexaad oo tiro intaa leeg meel walba ka helaa. marka ururka saddexaad wuxuu noqonayaa sidaan anigu qabo, haddii ilaahay aqbalo wuxuu noqonayaa xisbiga la yidhaahdo sidaan anigu qabo oo wax walba saa u socdaan saa aynu ku gaadhno doorashada si xor iyo xalana u dhacdo. waxaan filayaa inuu noqon doono ninka la yidhaahdo ummadda. haddeen barnaamijka gabagabadeeda usoo dhawaaneyn dadka qaar ayaa ra'yiga ka duwan qabo ah in labada guddoomiye waddan iyo ummaddu labaduba ay beel iyo isku deegaan mid ka sharaxan yihiin, lagana yaabo inay isku jabi doonaan oo codadkooda ay tashkiili doonaan oo gobollada ay kasoo jeedaan baaxadda doonahan lahaadana aysan hadhow ka helin doonimadooda cod ku filaada markii taageerayaasha labada qaybood kala jabaan dhicna karta in labadooduba ka baxaan saaxadda siyaasadda. rajada iyada wax ma ka jiraan? arrintaas waa wareegga labaad, weli maynaan gaadhin. waxay daba taagan tahay oo ay ku xidhan tahay marka ummaddu soo baxo, markaas dee isagoo quri iyo labadoo quri kama baxayaane. markaa dadku waxay kala dooranayaan 3 hogaamiye iyo 3 xisbi. muhiim aha markaa inay beel lama dooranayo, markaa waxaa la dooranayaa madaxweyne. iskuna jabi maayaane waxaa laga yaabaa inuu miduu soo baxo oo midunbaa 3 xisbi midunbaa madaxweyne noqonaya. taas wax weyn maaha, kor iyo hoos 3 xisbi soo baxa. gabagabada eedda loo soo jeediyo guddoomiyaha ururka waddani ah inay dowladdu taageerto ama ay dowladda xiriir dhow leeyihiin, maxaad iyada ka odhanay? dowladdu ma taageerto oo ma odhanayo way taageertaa, waxaan odhanaynin dee dowladdu guddoomiyuhu waa dee guddoomiyihii sharci dejinta, marka isaga ayay ahayd dee controolka shuruucda, isaga dee weligiin baarlamaankiisa. dowladdu awood caynkaas way ku baajiso, awood caynkaas way ku baajiso waayo dowladda sharci dejin waa sharci fulin. marka awood caynkaas ay ku baajiso malaha waa iska munib waxaa jira wax la yidhaahdo iska hadalla dadweyne. waa run oo inaan marnaba hab mucaaradiisu inaanu ilaa inay mucaarad wada ahaayeen oo isku xisbi ku dhahay dowladdana wada dhiseen oo sida hadda anigu aan tuunsanahay oo guddoomiyaha ururka waddani oo dhismaha dowladdan iminka jirta oo qayb ku lahaa waa arrin jirta. waa arrin aan tuunsanahay laakiin toos looma odhan karo dee lama caddayn karo. haddii aad tidhaahdo dowladda caawisaa waxaa lagaa doonayaa lagu weydiinaya siday u caawisaa. aad iyo aad ayaad umahadsantahay daawadayaal ama dhegeystayaaalkaas wuxuu ahaa Cumar Cabdikariim Xirsi, siyaasi ku xeel dheer siyaasadda Soomaaliland iyo Soomaaliyaba, sidoo kale waa aqoon-yahan muddo badan qurbaha joogay gaar ahaan waddanka Jarmalka. barnaamijkana maanta ayuu marti noogu ahaa, halkaad nagala socotaan warbaahinta Somaliland meel kastoo joogtaan waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.